بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiintan ah what are levels of management heerarka maamulka shirkadaha waxaa loo kala saaraa 4 darajo ama heer ee hortiina ka muuqata balse badi waxaa laga reebaa midka koowaad oo markaad buugaagta akhrinaysid ama jaamacadda dhiganaysid haddaad aragtid 3 iyana waa sax ogowna dowr waliba ama heer walibana waxa ay leeyihiin shaqo loogu talagalay in ay qabtaan si loo gaaro ujeedada guud ee shirkadda sidoo kale ogow mar waliba oo kor la aado saddexagalkan wuu yaraanayaa mar waliba oo hoos la soo aadana wuu ballaaranayaa taas oo ah in awoodda shirkadda mar waliba oo kor la aado ay badan tahay ama ay sarreyso haddii hoos la soo aadana in ay awoodda baahsan tahay ama awoodda waxaa loo qeybiyey dad badan markana aan mid uga hadalno heerarka maamulka ee shirkadda board of directors waxaana sidoo kale loo yaqaanaa strategic management haddaba dowrka golaha sare ee maamulka waxa ay ka mas'uul yihiin samaynta go'aamanka ugu sarreeya ee jihaynaya shirkadda iyo go'aamanka muddadoodu ay fog tahay iyo xaqiijinta maamul wanaagga shirkadda sidoo kale board of directorska waxa ay ka mas'uul yihiin magacaabidda maamulka sare ee shirkadda ee loo yaqaano top level managerska sidoo kale waxa ay xaqiijiyaan in ay shirkadda dhaqan geliso shuruucda laga rabo inay shirkadda u hoggaansanto sidoo kalena waxa ay xaqiijiyaan inay ku shaqaynayaan hab dhaqan wanaagsan oo anshaxna ku dhahan yahay top level management sidoo kale waxaa loo yaqaanaa senior management ama executive management haddaba maamulka sare waxa ay ka mas'uul yihiin dejinta istaraatiijiyada iyo meesha ay u jihaysantahay shirkadda top levelka waxaa ka mid ah CEO ama chief executive officer oo ah maamulka ugu sarreeya shirkadda chief financial officer waa maamulka uga mas'uulka ah axwaasha maaliyadda ee shirkadda sidoo kale waxaa ka mid ah chief operation officer waana qofka uga mas'uulka ah howlaha ka socda shirkadda iyo wixii la halmaala oo jagooyinkaas ah 3 waa middle level management waxaa sidoo kale loo yaqaanaa middle management ama departmental management haddaba maamulka dhexe ee shirkadda waxa ay isku xiraan top level management iyo frontline management ama maamulka sare iyo maamulka hoose ee shirkadda waxayna ka mas'uul yihiin waaxyaha kala duwan oo ay shirkadda ka kooban tahay sida maamulka waaxda suuqgeynta ama maamulka waaxda iibka ama maamulka shaqada iyo shaqaalaha iyo wixii la halmaala oo ah jagooyinka maamulka dhexe ee shirkadda sidoo kale waxa ay hirgeliyaan ama meel mariyaan istaraatiijiyadii ay dejiyeen maamulka sare ee shirkadda kuwaasoo ah top level managementiga tusaale la xiriirta maamulka dhexe ee shirkadda waxaa ka mid ah maamul waaxeedka sida maamulka shaqada iyo shaqaalaha sidoo kale middle level managementiga waxaa ka mid ah qofka ka mas'uulka ah xafiis ku yaala gobol oo kale oo ay shirkadda leedahay ama qof ka mas'uul ah mashruuc soconaya muddo kooban 4 frontline management waxaa sidoo kale loo yaqaanaa first line management ama supervisory management waana meesha uu ka bilowdo darajada maamulka ee shirkadaha waxa ayna si toos ah u maamulaan una hagaan shaqaalaha shirkadda non managerial staff waana dadka qaata go'aanka shaqada la xiriirta iyo shaqaalaha hoose ee shirkadda gunaanad maamulka sare ee shirkadda waxa ay xoogga saaraan dejinta sawirka guud ee shirkadda waxa ayna mas'uul uga yihiin shirkadda golaha sare ee maamulka ee loo yaqaano board of directors middle level managementiga ama maamulka dhexe waxa ay hirgeliyaan istaraatiijiyadii ay dejiyeen maamulka sare ee shirkadda oo waxa ay waax waliba ka mas'uul tahay hirgelinta qaybtii kaga soo aaday waaxdooda qolada ugu dambaysa waa frontline management waana dadka hirgeliya ama xaqiijiya habsami u socoshada howl maalmeedka ka socda shirkadda iyo inay xaqiijiyaan in shaqaalaha ay u qabteen shaqadoodii si hufan intaasoo dhan
way wada shaqeeyaan si loo gaaro ujeedada guud ee shirkadda. xog dheeraada oo ku saabsan erebixinta management iyo board of directors fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.